assalaamu calaykum. mahmaahyadeenna waxaa ka mid ah 3 waa mugdi, 3 baa u miciina, 3 baa ka macaan, 3na waxba uguma taalo. haddaba intaanan muuqaalka u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto. barnaamijka waxaa kula socodsiinaya anigoo ah Iyaas Cabdiraxmaan. fadlan daawasho wanaagsan. waxaa la yidhi 3 waa mugdi, abaari waa mugdi, caws baa u miciina, doog baa ka macaan, qof aan xoolo lahayn waxba uguma taalo. habeen waa mugdi, dayax baa u miciina, dharaar baa ka macaan, qofkii aan indho lahayn waxba uguma taalo. waxaa la yidhi colaadi waa mugdi, heshiis baa u miciina, nabad baa u macaan, laakiin qofkii dhintay colaaddii waxba ugama yaallaan. oo Soomaalidu hadalka horay u dhammaysay. waxaa la yidhi talo siyaasad baa ka hadhay, oday samir baa ka hadhay, dumar socod baa ka hadhay, dhulna sagara ayaa ka hadhay, geelna seetaa ka hadhay. waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa 3 abaarood baa jira. 1 abaar rag iyo abaar dumar iyo abaar geel ayaa jira baa la yidhi. abaarta geelu waa hadduu wiilka beelo abaari uma dhinna baa la yidhi. doog kasta uu joogo mar haddii uu awrka ama hashu ay ruugi weydo geedaha oo qodaxda burburin weydo abaari uma hadhin baa la yidhi. oo abaar geel waa ilka la'aan. abaar dumar waa ubad la'aan baa la yidhi. oo inkastay ladan tahay, inkastay la jecel yahay oo ay joogto guri wanaagsan, haddana abaari uma dhinna haddii ay ubad weydo baa la yidhi. abaar rag waa arrin la'aan. raggu hadduuna arrinsan oo meelba inta joogtaay ayna wada arrinsan abaari uma dhinna baa la yidhi. waxaa kalay Soomaalidu ku mahmaahday jeerin lagama boodo lagamana duso. jeerinku waa geed ballaadhan oo nin kastoo booto dheeri aanu ka boodi karin. fardaha ayaysan qaar ka boodi karin. geed kor u dheerna ma aha oo laga dusi karo. daaq baa ku dhex yaalla oo xooluhuna ma daaqi karaan. arrintu marka la leeyahay jeerin lagama boodi karo ama lagama duso, waxaa laga hadlayaa ragga xujakaanka ah ee arrintooda ka dhigan waxay dadka ku hor joogsadaan. waxaa kaloo mahmaahyadeenna ka mid ah nin raga dhiil baa lagu rartaa dhuunaad ku furatide. ninka ragga ah dhiishaad ku raratay maxay tahay? tusaale, waxaad tidhi adar dhiishan ii soo dhaami. hadhow markuu keeno qoyskaagii oo haraadnaa ayaa cabbaya oo ku anbaxaya. waxaa kaloo lagu mahmaahay dumar ninkee u fiican. waxaa la yidhi ninka hayinkeega noqda, haybaddeeda ilaaliya, sharafteeda dhowraa, oo haddii ay guriga wax ka bixiso dadka horteeda aanan ku canaanan, aanu waxna ku odhanin, ee gaar ula hadla keligeed. barnaamijkan qaybtiisii koowaad intaas ayay ku eg tahay. waxaad nagala socoteen Duulay Leerkis. waxaa inoo soo diyaariyey muuqaalkan anigoo Iyaas Cabdiraxmaan. waxaan iga tegayaa nabadgelyo. ka xiga la soco insha Allah.